maanta waxaan joognaa customkii magaalada Tukaraq ee gobolka Sool waxaana kuna wasaaradda maaliyadda oo agaasimihii guud ee furdooyinka xisaabiyihii guud iyo xisaabiyihii gobolka Sool imas ayaanu kaga nimi magaalada Garowe waxaana u nimi ruuxaantii kormeer aan waayadan ku mareynay kastamada maartay Puntland isbuuci hore saa la socotaan waxaanu joognay Turdibi oo Galdogob maantana waxaanu joognaa Tukaraq oo gobolka Sool ruuxaantii waxaanu rabnaa sidii hore dawladdu u ballan qaaday hogaaminayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay iraahdeen waxaanu rabnaa inaanu laamiga ka degno inaanu gaarsiino baahida dadka reer Puntland u koorgalo meel kasta oo ay shacabka reer Puntland joogaan annaga wasaaradda maaliyadda ahaan sidoo kale waxaanu jecelahay inaanu runtii customiska dawladda Puntland kor u qaadlo maamuladeeda maareynteeda lana qaybsano wax alaal wixii jira oo dhiba sida ula socotaan halka maanta waxaanu ku haynaa wadna baabuur ay u baahan customku u baahnaa oo baahida hore soo jeediyeen iyo agab kaleeto oo maartay meeshu waa meel dhaxan badan sida loo sheegay oo aan rabno ciidamada turbataariyada inaanu runtii ay hadda hor noo soo gudbiyeen baahidooda inaanu ku wareejino maanta run ahaantii waxaan doonaynaa inaanu wajiga ay maanta Tukaraq leedahay ama customku leeyahay inaanu wax badan ka bedelo sidaanu meelaha kaleeto u ballan qaadnay insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiga soo socda inaysan noqon maalintii ugu dambeysay aanu Tukaraq nimaadno ama customka maartay Tukaraq noqoto marar badan oo ku soo noqon doona baahi kaleeto oo fara badan bay odayaashu noo sheegeen oo ay jecel yihiin dawladdu inay taasna fariinteedana waa qaadi doona insha Allah waxaan rajaynayaa khamiista oo horeysa inaan ku soo darsado ajandada oo aan fariinta iyada gubin doona magaalada Tukaraq iyo customka inta baahidooda in la gaarsiiyo si hay'adaha dawladdu uga hawlgalaaneen Tukaraq waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan soo siyaarto oo maartay noqoto safarkaygii ugu horeeyay aan Tukaraq ku imaado mana noqon doonto kii ugu dambeeyay insha Allah mustaqbalka waa iman doona maantana waxaan ku wareejinayaa baabuurkii maartay ilaalada kontrabanka maamulaha customka iyo maartay mas'uulka turbataariyada taliyaha qaybta oo booliska oo aan insha Allah jecelahay inuu maartay furi baabuurka wakaas baabuur kaas pickupka oo aan isleeyahay insha Allah hawshii loo baahnaa in lagu qaban doono waxaan rajaynayaa waxyaalaha kaleeto baahidana inaan si dhaqso uga hawlgalo ku soo dhawow maamule insha Allah waxaan jecelahay hawl wanaagsan ina qaban doontaan mustaqbalkana waa wada socon doona aad baad u mahadsantiin waa salaamaya runtii meediyada iyo maartay bahda saxaafadda oo mar walba iyagu u hawlan inay gaarsiiyaan fariinta shacabka reer Puntland waad mahadsantiin